السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan YouTube channel-keena Kenan Code aad uga barateen alaaba inaan idin soo gudbino muuqaalada tiknoolajiyada iyo farsamada cusub sida mobilada iyo computerska. muuqaalkan kooban waxaan ku baran doonaa farsamo ka caawin doonta inaad ogaato in email-iskaaga ciwaanadaada iyo mobiladaada ama number mobilkaaga la isku dayay in xogtooda ku jirta ama iyaga loo dhaco ama hacking lagu sameeyo. sidaa darteed waxaan hayaa website-kaasaan doonayo inaan idinla wadaago aad kuna tijaabisaan ciwaanadiinu inay yihiin kuwa secure ah ama ammaan ah. sidaa darteed casharkeenana wuxuu raaci doonaa qaybta internetka security-giisa. waxaad keliya aad u baahan tahay inaad kusoo qorto web browser-kaaga ama ciwaanka marba computerkaaga qaybtuu isticmaalayo bay ku xidhan tahay, laakiin mar walba qaybta software-kaad ka isticmaashid internetka unbaad waxaad ku qori doontaa googlaba ha noqdee am I get pounded. marka linkiga u horeeya kusoo baxay aad ku dhufan doontaa ay ku qoran tahay have I been pounded, check if your email has been pounded. sidaa darteed linkiga u horeeya markaad qoraalkaa ku qorto click ayaad siin doontaa linkigaas, website-ka ayaa kuusoo furmaya. keliya waxaad aragtaa daaqadan sidan markay kuga soo baxdo qaybtan halkan email or phone ay ku qoran tahay ayaa waxaad gelin doontaa marba ciwaanka ama numberka aad doonayso inaad tijaabiso in uu ammaan yahay ama la isku dayin horay hacking loogu sameeyo. sidaa darteed waxaan gelin doonaa email-iska ama ciwaanadan isticmaalo mid ka mid ah si aan u ogaado heerka ammaankooda uu gaarsiisan yahay ama inta jeer ee la isku dayay in loo dhaco xogta ku jirta ama la jabsado. ciwaanka markaan dhammaystiro aan geliyo halkan midigta ayaa waxaan ka baari doonaa qoraal ay ku qoran tahay pounded oo ay weliba calaamadda su-aasha ama calaamadda weydiinta question mark ay saaran tahay. sidaa darteed click ayaan siin doonaa, xoogaa shaqo yar ayuu halka hoose ka bilaabayaa. marka isaga ayaa ii kala sheegi doonaa in email-kayga la isku dayay in la jabsado iyo in kale. sidaa darteed halkan hoose waxaad ka aragtaan qoraalka aan idinku soo dhaweeyo good news baa lagu yidhi, war cusub fiican baa lagu sheegay, no poundage ama no poundage found. wax xogtaada in la isku dayo la jabsado oo email-kan laga helay ma jirto. no breached accounts, wax account-na looma dhicin, no pastes, wax inta xogta koobigaaga laga sameeyey xogtaada koobi oo baasti lagu sameeyey ma jirto. sidaa darteed email-kan oo kale waxaan odhan karnaa waa mid ammaana. sidaa darteed bal aan email kale ku eego. email waxaa jira isagu kale aan isticmaalo, laakiin qaybta pound-ka aan kusoo tijaabiyey in la jabsan karo in kale si aan tutorial-ka ama casharkan aan idinku fududeeyo. sidaa darteed email-ka ayaan geli doonaa. keliya waxaad eegtaan waxay ku kala duwan yihiin email-ka secure-ka ah iyo email-ka kale. kan kale ayaan gelinayaa, waan ku dhufan doonaa. kan laftirkiisu waxaad aragtaan inuu yahay good news. ka u dambeeya markaan eego waa ka aan ogahay inuu soo saari doono fariin sidan ka duwan marka. okay ukaadi way waad aragtaan meeshii uu soo qoriyey markii hore good news uu soo qorayaa on no pound. sidaa darteed wuxuu sheegayaa email-kan inuu kuwii hore kaga duwan yahay isaga in la jabsi in lagu dayo ama in la jabsado. qoraalka sida inka muuqata bounded in one data page, hal mar unbaa xogtaada la isku day in loo dhaco. and found no pastes, wax based ama basti ah koobi laga qaatay xogtaasna ma jirto. sidaa darteed email-kaaga haddii uu yahay secure waxaad ku kala ogaanaysaa inaad soo gasho website-kan ay ku qoran tahay have I been bounded. sidaa darteed waxaad ku ogaan doontaa email-kaad isticmaasho in la isku dayay in la jabsado iyo in kale. marka waxaa jirta markaad ogaato in aan la jabsan inuu password-kaada isticmaashidba suu yahayba ha ku ahaada inaad daysato, laakiin haddii uu qaab noocan ku saaro digniinta kugu bixiyo waxaa talooyinka qaybta hoose ugu talagalay xagga hoose yaalaan. marka saddexdan step unbaad raacaysaa xagga talada. oo step 1-ka wuxuu ku sheegayaa step 1 wuxuu ku yidhi talaabada koowaad protect yourself, waxaad ku ilaalisaa naftaada ku ilaali bakari using one password adoo isticmaalaya programka one password to generate and save strong passwords for each website walba si aad ugu isticmaasho password ama eray fure adag. sidaa darteed one password waa application marka koowaad ba lagula taliyay inaad passwordadaada ku isticmaasho. talaabada labaadna aan eegno ama step 2-ga isna waa enable, waxaad furtaa ku dhamaado ogolaataa inaad isticmaasho two factor authentication. isaguna waa habab kala duwan oo lagu ilaashado security-ga gmail-iska iyo facebook-yada
store the codes marka koodhadhkana waxaad ku kaydsanaysaa oo kaliya inside your one password account ciwaanka one passwordka gudihiisa ku kaydsanaysaa marka waa laba qaab step 3 ga u dambeeyana isaguna waxa lagu yiri talaada saddexaad subscribe baa lagu yiri channelkan website-ka ama application-kan ayaad subscribe dhahaysaa oo waad iibsanaysaa bay ka dhigan tahay to notifications si lagugu soo diro ogeysiisyada for any other page haddii xog kale aad leedahay la isku dayo in loo dhaco then just change that unique password kadibna passwordka goonida ku ah unique ah bedel marka saddexdan talooba waad gooni baad u akhrisanaysaa laakiin muhiimadda koowaad waxay tahay marba haddii aad aragto inuu calaamadda ku soo saarayo ay tahay digniinta kalarka casaanka leh uusan good news ku soo saarin inaad si dhaqso ah passwordka ku bedelato talooyinkana aad raacdo insha Allah muuqaalkeenu intaas ayuu daarnaa intaasana ku soo gabagabayn doonaa insha Allah ta'ala hadda channelkayga ku cusub tahay subscribe hadda hore noo joogteen like to dhiirigelin muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته